idinkuna aad baa u mahadsantihiin dhalinyaradiinnan wiilal iyo gabdhaba leh sida quruxda iyo qiimaha badan u soo xaadiray ee xiisaynaya dadkooda iyo diintooda. Allah idin barakeeyo. intaa kadib maadaama waqtiguna iska kooban yahay waxaan taaban doonaa mawduuca wax la idinka sheegay ama دور المثقف في بناء الأمة برشدي سأقويهنكو كارنت وكله كل يوم موضوع عادو بلارن فاهم بدن أو باهن لكن دبرنا عمبان وقت كتابن دونا طور يسوي حويا صفات المثقف المسلم أقويهنك أما قفك علمي قالها مسلم كا تلمامها أولي يطلب هذا أبو الشدة كالنت وكل يوم قبض كريل قدونا ينوقبته waxaynu isugu sheegaynaa ana ma ahayn in dhagaha ugu raaxayna waa inaynu ku dhaqanno Allah inagu anfaco marka oo horeeya tilmaamihiisa waxa ka al-adab al-jam inuu yahay qof adab leh qof adab leh qofka reer biyiga ama waxba garanay ama ciyaar suuqa buuqiisu badan yahay laakiin qofka inuu aqoon leeyahay waxa ka turjubaya xishoodkiisa urursanaantiisa iyo gaabsashadiisa waa qof cafiifa qofka aqooyahankii waa qof dhowrsoon dadka waxyaabaha lagu dhaliilo ama qaawanaanta ama ceebta ama ciyaala suuqnimo male aqoontaasa faraysa maadi iyo diiniba aqooyahankaynu hadda ka hadlaynaa waragiina jaamacadaha diinta iyo maadiga ku jiraba ee bulshada la doonaya inay indhaha u noqdaan waynu isku wada daraynaa iyo dumarka rag iyo dumarba sidaa daraaddeed waa qof mutawaadica oo marka la leeyahay adaabuu leeyahay kibraani maaha kibirka badownimada keentay iyo jahliga waxaanu had iyo jeer qofka kibraya ku kabaa nuqsaan uu leeyahay qof haddaad aragta kibraya wuxuu isleeyahay nuqsaantaada kab laakiin qofka aqoonta leh waa qof isku kalsoon sidaa daraaddeed hoos buu isu dhigaa waa qof yactif maca al-umay qofka jaahilkaa marka uu arko uu la tacadufaa wuu naxariistaa wuu u dhibriyaa ee kuma ciyaaro kuma jeesjeeso bal jaahilkan eega ma yidhaahdo wakadalika yastafiidu min almutacallim hadduu qof aqoon dhaama arkana wuu ka faa'iidaystaa oo aqoon kama dhargo waxyaabahaasi aadaabtiisay ka mid yihiin waxaa culimmadu ay ka warramaan imaamkii la odhan jiray axmed ibnu xambal waxaa la yidhi fadhigiisa iyo goobtu cilmiga ku gudbinayo 5,000 oo arday baa soo fadhiisan jiray arday markaan leeyahay waa dadka cilmiga qaadanaya waxaa ka mid ahaa culimo waaweyn oo isaga la mid a 400 aan idhaahdee 500 ayaa qalin iyo waraaq sitoo wax qoraya 4,500 kalena waxay daawan jireen aadaabtiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa si ay rabaayad uga qaataan aadaabta isaga oo ka warramaya imaamka weyne taabiciga ahaa cabdillaahi mubaarak la odhanay waxa uu leeyahay naxnu ilaa kathiirin min aladab axwaju ilaa kathiirin min alcilm in badan oo aadaabta ka mid a ayaanu uga baahannahay in badan oo cilmiga ka mid a baahidaanu aadaabta u qabno ayaa ka weyn ta aanu cilmiga u qabno sidaa daraaddeed waxaanu ku dadaalaynaa buu leeyahay haddaan nahay culimmada iyo aqoonyahanka muslimka inaanu aadaab yeelanno ilaahayna markuu ammaanayay asxaabtii nebi maxamed waxyaabuhu ku ammaanay waxaa ka mid ay yihiin dad rabaayad leh هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وحنوجه هذا ويزكيهم تربية آداب وسينة النبي محمد سادرادت بأصحاب الرسول قال قروح بطلايا أقوياء كقلب ككوباد وأن تدشنا يا كاوية قلب كاللغات ولا وحوي التكامل والتوازن التكامل والتوازن وقف السوداء للتران hadduu ku takhasusay waa marka muthaqaf la leeyahay
hadduu maado ku takhasusay ama uu sabjigiiyo qayb yaqaano cilmiga min kulli baxrin qatra culumta kalena wuxuu isku dayayaa inuu fikrad ka haysto ee maadadaa uu bartay oo qura qof ku urursan aqoon-yahanku ma aha daalacashadiisaa badan waktigu maktabadda ku jiro cidda uu la kulmayo wax ka faa'idaysanayo akhrintiisa sidaa daraaddeed 20 fanni oo kale ayuu midba fikrad ka haystaa taasina runtii waxay tilmaamaysaa muthaqafnimadiisa ka turjumaysa si aanu qof farsamo keliya u noqon qodobka saddexaad ee aadaabtiisa waxaa ka mid ah asabru cala isdiyaadi alcilm kororsiga waa aqoonta kororsanayo kama dhargo marka muthaqaf la leeyahay muthaqaf markaynu leenahay maaha qof shahaado sitoo qura qof aan shahaadaba sidan baa muthaqaf lagu tilmaamaa waayo waa qof aqoon lahu in badanoo adduunyada aan sidanin shahaado jaamacadeed iyo mid secondary doona ayaa aqoon waasicoo ballaadhan leh marka waa qofkii aqoonta lahaa cilmiga kororsigiisa kama dhargo bal mar kasta oo qofka aqoontiisu ay sii badato baahidiisa ayaa badato axmed ibn xambal imaam weyn buu ahaa raggii madhabaha mid ka mida alifay buu ahaa isagoo da-diisu ay weynti oo qalin iyo waraaq iyo khad sitaa la arkay oo aan dhigaynin markaa waxay idhahan xataa ya axmed ant axmedow ma adigii madhabka qoray ayaa weli qalinqoyana markaa maqaaladiisii caanka ahayd buuha min almaxbarati ila almaqbara anugu markaan khadkan ka tago xabaashun baan tegayaa meelaan kaga weynaanayo ku dhaafayaa ma jiro sidaa daraaddeed cilmigu waxa uu u baahan yahay sabir maadiya diiniba cilmigu wuxuu u baahan yahay inaan kororsigiisa laga daalin waxaa innaga iska badan qofku intuu jaamacadda ka qalinjabiyo inuu meelaha iska fadhiisto waxna aanu kororsanin oo aanu wax daalacashaa samaynin cilmi kale sii baranin macluumaad kala qaadanin wax dhigin oo aanu isagii dadkii wax u dhigin hadha waxaa dhacaysa inay intii ka madoobaato cilmigu sabirkaa u baahan yahay ka maadiga iyo diiniga labadaba waa laga midho keenayaa ninkii alifay ama hindisay iftiinkan aynu haysano ee la yidhaahdo kahrabaaga adison la odhanayay ayaa waxaa la kayfa nilta bi hada alcilm cilmigan maxaad ku gaadhay nalkan aad ummadda u siraaday iyo iftiinkan markaa wuxuu ihi 99 bijabiin alcarab wa waaxid bidakaa boqolkiiba 99 dadaal bay iga ahayd buuri halka soo hadhayna wuxuu ahaa buuri faham aan fahmay iyo fikirkii oo ku soo helay laakiin macluumaadkan ama aqoontan waxaan ku gaadhay oo ku ikhtiraacay dadaal buuri waxaa shanaad oo ka mida waxyaabaha ama afraad looga baahan yahay qofka aqoon-yahanka ah alistiqlaaliyatu walbucdu can alcasabiya inuu yahay qof mustaqila oo aan cidna u xidhnay wuxuu u xidhan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala sharciga kama tallaabo xaaraan uma gudbo laakiin maaha qof wax lagu shubto ama laga dhex hadla maaha ama had iyo jeer dadka loo gacan haadiye iyaga la jiheeye maaha xukuumadina ma jahayso caaqilna ma jaheeyo reerkiisuna ma jaheeyo isagiibaa la doonayaa dadka inuu jaheeyo aqoon-yahan sidaa daraaddeed wuxuu ka madax bannaan yahay casabiyadda ama gobol loo tacasubo ama qabyaalad loo tacasubo iyo reer iyo xisbi waa qof isku filan isagu dadaalaya oo doonaya dadkiisa inuu jaheeyo waana nasiib daro qofkii aqoonta sheeganaya hadduu reerkoodii ku milmo qabyaaladii isaguna uu la mid noqdo dadkii miyiga ka yimid ee iyaguna ku dhawaaqaya ku hadaaqayay qabyaalada marka aqoon-yahanku waa kii dadka ka xorayn lahaa daba socodka indhahala iyo casabiyadda iyo qabyaaladda taasina runtii waa midh aada u muhiima oo ay tahay casrigeena inay dhallinyaradiinu ku dadaashaan laydinkana marti yahay waayo dadkeenna waxaa arkaysaa waxa ugu badana jaanjaamiyey waa qabyaaladda iyo dadkoo la kala faquuqo waxaa ka mid a aqoon-yahanka muwaasafaadkiisa ama tilmaamihiisa almuxaafadatu cala alhumuumi alislaamiya inuu hamiga dadka muslimiinta xambaarsan yahay maaha qof tiisa oo quraahay ay murug gelinayso tiisa un ka fikiraya maadaama ummadda waxu bartay maadaamuu indhaheedii yahay rag iyo dumar mid kastaba ha ahaado wuxuu hamiga ummaddu xambaarsan yahay ummaddu sidee bay diinta uga horumaraysaa sidee buu dalkeedu horumaraa sidee baa dowladdeedu hagaagtaa
sidee baa dhaqaalaheedu u hagaagaa sidee baa midnimadeedu u hagaagaa sidee baa shisheeyaha looga celiyaa sidee baan looga faa'iidaysan waxaasoo dhan qofka u taagan ee u fikiraya mada alqariibi waalbaciid wakhtiga dhow iyo ka dheer waa qofka aqoon-yahanka ah waxa uu leeyahay shucuurkaas uu leeyahay dareenkaas ilaahay baa nabiga la hadla waxa uu qaatil fii sabiili illaah laa tukallafu ilaa nafsak waxaridu almu'miniina cala alqitaal dadka mu'miniinta ah nabiga ilaahay ula hadlay si gaara wuxuu yihi naftaada jihaadka u gal haddana intaasoo qura laguma dayna waxa lay mu'miniintana iyagana dhiiri geli oo inay jihaadkii wadan ku dhiiri geli marka jihaadku uu noocyo badan yahay waxyaabaha aynu ka soo hadaloo dhami waa jihaad kala duwan sidaa daraaddeed ummadiisana wuu dhiiri gelinayaa isaguna horseed buu yahay aqoonyahanka tilmaamihiisa waxaa ka mid ah almuxaafadatu cala alhuwiyati alislaamiya waa qof ilaashanaya abtirsiimadiisa islaamka oo aqoonyahanka gaalku wuxuu ku faanay iyo wuxuu sheegta maaha keenu aqoonyahankeennu waxa weeye wuxuu ilaashanaya huwiyada waxa la yidhaha cid waliba huwiyay leedahay abtirsiimay leedahay marka innagu aqoon diineed iyo mid maadida ee caqiidadeennii saxda ahayd bay ku salaysan yihin marka islaamka kama faanayo qofka aqoonyahanka muslimka laakiin wuu ku faanaya sidii uu lahaa cumar ibn khataab naxnu qowmun acazana allahu bilislaam waxaanu nahay ummad ilaahay uu ku sharfay islaamka haddaanu meel kale cisiga iyo sharafta ka raadinana ilaahay baa na duleeya buu lahaa arrintaasina casrigan aynu joogno aad bay muhiim u tahay oo dadka qaarkoodoo da-yarta ah ayaa waxay isku dayaan ama u arkeen haddii uu ku faano islaamka inuu hoos u dhacayo ilaahay baa sheegay rasuulkaa sheegay waaqicaynu ka aragnay arrintaasina waa muhiim waxaa aqoonyahanka tilmaamihiisa ka mida atawaasulu maca alkhayr maca alxasaanati alfikriyati bilcaqiidati asaliima qofku inuu la xidhiidhi karo kalsooni qabo ummadaha kale ee aan islaamka ahayn si uu hoos u hanuuniyo si uu ula doodo si uu uga faa'iidaysto waa qof isku kalsoon oo caqiidadiisu ay dhisantay maadaama uu muthaqaf yahay wixii khayr ay leeyihiinna ummadaha shisheeye uu ka qaadanaya wixii sharana wuu iska joojin karaya laakiin maaha qof haddii uu dood galo aan waxba ka jawaabi karayn ama isdhaa cid hanuuni maaha haddii wax loo soo bandhigo xun qof iska liqaya markiiba arrintaasina aad bay u muhiimtaha halkana qura ku egaan maysaane xilku waxa uu inaga saaran yahay caalamka oo dhan ayuu inaga saaran yahay inaynu soo hanuunino oo aynu hagaajinno waxaana maanta aynu ogsoonnahay in adduunyadii ay noqotay maqsin keliya oo la isugu soo wadagelaya halkaa baraha bulshada gaaliyo islaam marka qofkii aqoon-yahanka ahaa waa inuu naftiisana xasaano u leeyahay difaac qofkii kalena wixii khayrka ahaa uu gaadhsiin karo qancin karo sahay uu sito shadada uu ku sito cilmigii cid kaloo shisheeye uu ku qancin lahaa markaynu qodobadaa kooban kaga soo gudubno tilmaanta uu yeelanaya aqoon-yahanku da-yareey waxaa markaa loo baahan yahay in loo sii gudbo dowru lmuthaqaf tujaaha alummati alislaamiya aqoon-yahanka tilmaamaha iyo qaar kaloo badanba lihi kaalinteebuu ku leeyahay ummadeenna islaamka oo ummad islaama diintooda ku abtirsata dhaqankooda wanaagsan ilaashanaya doorka uu ku leeyahay waxaa kow ka ah tafsiiru lumma bilxuquuqi waalwaajibaat wa tasliixuhaa bilcilmi waalmacrifa waa inuu tabsiir leeyahay tabsira oo dadka uu tusinayo tafsiirku waxa weeyaan inuu ummadda u ila bixin karayo indhana u yahay dadka waxa saaran ee waajiba iyo xuquuqda ay leeyihiinna u sharxi karayo sahayna u siinayo wixii ilaahay uu soo baray aqoon ahaa uu gaadhsiin karayo ula gurmanayo waxaynu ogsoonnahay ifkan marka la joogo dee qofku xuquuqina way saaranta waajibaad baa saaran isaguna xaq buu leeyahay xaqii waladkiiyo waalidku isku lahaayeen ninkii ooridii isku lahaayeen madaxdii raciyaddu isku lahaayeen gaaladiiyo islaamku isku lahaayeen qofkani wuxuu u taagan yahay inuu xuquuqda xaqiijiyo marka waa qof sheegi karayo dadka u tilmaami karayo war xaqaasu waddanku kugu leeyahay xaqaana dowladdaa kugu leh xaqaana jaarkaa kugu leh xaqaana ummaddaa kugu leh xaqaa martidaa kugu leh waa tafsiir waa qof ila bixin waa indhihii ummadda weeye aqoon-yahan wuxuu dadka u gudbinayaa u gaadhsiinayaa aqoontan ammaanada ah ee u soo bartay ayuu ummadda uga faa'iideeyay ilaa waxaa loogu tabcayay oo hooyo iyo aabba ay usoo maalgeliyeen mucallimiintuna usoo maalgeliyeen iyo madaxda ummaddu qofkan inuu isaguna wax soo celiyo si cilmigiisii u baaho oo barako u yeesho
taasina waa arrin aad iyo aad muhiima kaalintaasaa taaganta kii la tilmaami lahaa ma ihi intuu wax garan waayo dadka daba maro laakiin adaa tilmaamaya insha allah dowrkiisa waxaa ka mid a alwuquufu bijaanib alxaq wa muqaawamatu lbaatil xaqa iyo ciddii xaq ku socota inuu isbarbar taago ciddii dulmi iyo gardarro ku socotana inuu aqoon-yahan ku joojiyo wey haddii xisbigaagu qaldan yahay ama reerkiinu qaldan yahay ama saaxiibkaa qaldan yahay waxaad leedahay adar inaga daa aqoon-yahanimadeeda iyo anshaxeen iyo umadnimadeeda midna kuma fiicna inay dulmiga noocana samayno hebel waa daalin innagaba hayna taageersanaa dulmiga waa ka joojinayna wuxuu markaa ku soconaya aqoon-yahanku tilmaantii nabigu siiyey yihi unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa u hiili haddii uu wax dulmiyayuu gardaran yahay haddii laga gardaran yahayba hadduu gardaran yahay gacanta qabu ku fasiray nabigu ereyga carabtaa isticmaali jireen si qaldan bay u isticmaali jireen nabigu wuu saxay waa erey bixinu lifaaq raaciyuu saxay oo iyaga waxay lahayn ninka reerkiinu ama qofka xaggiina ka soo jeedaa gar iyo gardaraba ku taageer marka nabigu wuxuu ku saxay u raaciyay haddii uu gardaray gacanta qabo jooji markaad aragto dadkii aad ka soo jeeday noocyada aan soo sheegay mid kastaba ha ahaado qalloocan aqoon-yahanku maha ka u nacamleeya ka isgarab taaga maha laakiin aqoontiisu cilmigiisa iyo caqliga uu yeeshay wuxuu sheegaya inuu ka daa jooji oo dabeetana la arko intaasoo aqoon-yahanoo intay surursadeen iyagu dadkii qaldanaa waajahaya oo u badheedhaya oo ka hortegaya markaasina waa waajib ina saaran aqoon-yahanka waxa doorkiisu uu noqonayaa أن يواجه عواطف الجماهير بعقلانية وعمل مثمر بلشدو سينو أكسونها عاطفات بيلان جمهور معناه وأمضى المدوين وحيليهين عاطفات مرارك قار كود وحبا يسكا تاغيران قلدان انت يسكا بوقانا ما يسكا مظاهرادان وهو يسكا جيبودانا وحبا يسكا جعلادان سيقالادا مرارك قار كودنا wax saxa baa laga yaabaa in lagu kiciyo ka caroodaan ay didaan oo buuqaan ay qayliyaan kii jahayn lahaa caadifadooda sida diinta iyo dalka u fiican si xigmad leh oo isagana si aan loo jiirin si xigmad leh qofkii u jahayn lahaa waa maxay waa muthaqafka qofkana aqoon-yahanka way oo isagoo isticmaalaya inuu kalsoonidoodana ilaaliyo si aan loogu dhufanin oo looga dhaqaaqin ayaa uu tilmaamaya markaasuu dadka toosinaya markaasuu tabartooda ka faa'iideynaya saa daraaddeed waxaa laga yaabaa dadku kacdoonkoodu wax saxa hadday ka hor imanayeen inuu ka faa'iideeyo caadifadooda iyo dhinaca kale u rogo oo wixii saxda ahaa ay ku kaceen uu markaa u soo celiyo waxaa laga yaabaa wax qaldan hadday taageerayeen aqoon-yahanku inuu wixii qaldanaa si dhib yar uga reebi karo idan markaa caadifadda jumhuurka iyo ummadda maadaamuu indhow yahay aqoon-yahanku kii la socdo maaha yidhaahda dee ummadii weyntiibaa waxaan doonaya iraadatu shacbi iraadatu llah shacabku wuxuu doonaya unbuu ilaahayna doonaya shacabka ayaa khilaafi karaya caadifadooda caqlaaniyad buu ku saxaya si camal midhadhala oo wanaagsan uga soo baxo arrintaasina aad bay muhiim u tahay oo dadkeenu marar badan ayay farta dhexda ka qaniinaan fal horay sameeyeen markaasay yidhaahdaan arrintaa waynu ku qaldanayn arrintaasi sax ma ahayn arrintaasi markaasayna hoos martay marka cidda jahaynaysa ee caqli wanaagsan u keenaysa caadifadda jumhuurka waxa weeyaan waa qofka aqoon-yahankaa wey sidaa daraaddeed waa muthaqafun wa qariibun wa aydan waa rajul shacbi muthaqaf uu yahay laakiin muthaqaf meel ku xidhan maaha oo ama maktabadun fadhiyo keliya ama jaamacadda un iska jooga ama dugsiga iska jooga laakiin waa qof jumhuurkiisa ku dhex jira oo ummadiisu la socdaa ilaa wuxuu u socdaa uu badbaadinaya waa ummadda marar badan way dhacdaa aqoon-yahanku inuu dhaa maxaynu ka dhex gelaynaa dadku caqilay leeyihin dadku culimay leeyihin kuwaasaa wuxuu sheegaya wacdiya inagu dadkii aqoonta lahaa baynaaye goobaha aqoontaynu iskaga urursanaynayna maya jumhuurka ayaa u baxaya badbaadinaya waa indhihii ummadda nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam nimanka gaaladu markay eedaynayeen sida qur-aankuba ka warramay waxyaabaha ay ku eedeeyeen waxaa ka mid a inuu ummadda dhegahooda haysto oo ummadda uu la dhaqmayo ku dhex jiro oo aanu ahayn sidii boqorrada iyo madaxda mid ummadda ka dhex baxsan maaha markaasa iyagoo dacaayad uga jeeda waxay yidhahdeen maa lihaada arasuul
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ونك هو محي رسولك هذا نشيغنا يعني هذا وحيون اسكعونية وحسكعبية يدتك يسكن أحسن الله معناه waxay kula yaabsan yihiin oo ay ku haystaan inuu ummadii u badbaadinayo indhaha oo ha nabigu ku dhex jiro marka waa aqoonyahanku waa ka si ummadda u jahayn karo ummadiisa ku dhex jira ee caanka ka ah ee la yaqaano ee markuu minbarkiisa soo taago dadku intay wada aamusaan waxaasaynu yeelaynaa dabeetana dhinaca u dhaqaajinaya jahayn karaya aqoonyahanku doorka ummadda ku leeyahay waxa weeyaan waa an yujiiba ala tasaa'ulaati الnaas wa yu'aalija mashaakilahum inuu ka jawaabi karo su'aalaha dadku ay soo dhigayaan faraha badan inuu ka jawaabi karo oo mushkiladoodana xal uu keeni karo dadku waxa laga yaabaa shirar ballaaran oo noocan intoo la isugu yimaado in la tiriyo mushkiladaas ay haysata taasina way jirtaa qabyaalad baa jirtaa balwadiina way jirtaa dagaalaa jira abaaraha jira waxbay tirinayaan shirkaasi wuxuu ku dhamaanayaa sidii mushkilada loo tirinayay ama mushkiladii baaba su'aalo laga soo jeedinaya waxana loo baahnaa in hore loo socdo xalkeedii la keeno استادرادد وحلا إلى هذا المثقف يحدد ويحلل قفك مثقف كاي وحو تحديدين يا مشكلتي كدبنا حلكي برهادين يا كاوحو لا هي markay dadku mushkiladaha dhan soo wada tiriyaan adigu aad ka qorto aqoonyahankiina waxa laga rabaa in xuruushi keentaan xalka qabyaaladu waa oo xalka qaadkiisa isgaarku waa oo xalka qabrigu waa oo xalka jahliga oo xalka busaarada oo xuruusha cidii keeni lahayd التحديد كي التحليل كما يسرعين لهاي وقويهن تابع عليه ما ها قف وحول سؤال بين ولادة كل هدي ليلها لقيت جواب أنا وبحية وحا إسكا معروف فقفكم أقونتي سو إنسان كأنه إسكا كوبان تاي مركا وحي وقالنا يومي وحا انتو تحديدية وتشخيصية أو صام وشي وصار دقام إسكا حالك ورهدين لكن وحي وقالنا وايو إن من العلم لا أعرف أو لا أعلم علمي waxa kamid ah tira anigu taam garanayo mushkiladaas way jirtaa laakiin xalkeeda anigu imika ma hayo ma aha adab ma aha aqoonyahanimana ma aha waxaanad garan karaynin inaad isku qaado oo aad isku kalifto oo mesela adigoo diinta aqoon badan u lahayn sidii caalimka aad u jawaabto oo tiraado wallahi anigu diinta ma aqaanay waxay ila tahay inay caynka islaamku u oranayo islaamku waxay ila tahay ma aha waa wahyi marka waxiga hadaanad garanaynin aqoonyahanka kala hal la weydiiyo ku takhasusay baa leedahay way iskalifaada waxa la yiraahdaa ma aha aadaabta aqoonyahanka iyo waxaan u garanayno isku kalifo ilaahay baa nabiga wuxuu ku yiri qul ma asalukum alayhi min ajri wama ana min almutakallifin dadka waxaad ku tiraahdaa anigu aduun idin kuma weydiisanayo diinta idin soo gaarsiinayo mutakallifna ma oo waxaan garanayn din isku qaadaya ma أقوياك وحيابها اللوغة بهي وحكمد أن يكون له دور في إصلاح الفكري والديني والاجتماعي مسكح لأمضة إنه صحي كرف وقفكو أركائنا وحكوك اللعينة وحكو العامة وإنه فكر كو صحي كرف وحفظنا ومدينا وحيابها خلخلية وحكمد قف قلدن وإسوها يستينوا صحيا دومي جوغو يا دو مقالة جوغو يا ديو دبلها كي waxaa la doonayaa daayartiinan wadanka joogta markay idin yimaadaan daayarta kale qurba jooga ah ee badan gaalada ay wax soo dhigayeen ay badan laga yaabo thaqaafad kale inay qaateen iyo waxyaabo ummado kale ay ka qaateen cidii sixi lahayd dhaqanka diinta bari lahayd dhaqanka Soomaaliga bari lahayd ee wadanka jeclaysiin lahayd waa idinka weyn dhaqada dadkii wax ka eegi lahaa iyo qulubta dadkii wax ka eegi lahaa oran lahaa ruuxana maayn adduunyada anaga soo daraasaynay mashaariicdana adeer dhacayso faa'iido badan tijaarta dadkii keenaysan kuwana iska daba gasheen ka daayo warshadaha sameeyo mashaariicdan sameeyo horumarka keena ka daayartu aqoonyahan kuwa ka u siraada laabada ibtikaarka ama inuu wax cusub keeno oo hal abuur u yeesho arintaasina aad bay muhiim inoogu tahay qofka aqoonyahanka ahi وكدراسين يدك يشعر الناس بأهمية اللغة العربية اللغة العربية وهي بدأ إلى هذا وهذا كذا قرآن كذا يو إن وحلقوا بردتك بعض وهي واحد نتاور لنا أقويها بضنا مسلمين تكملي قالت أبوك فهمي لغة القرآن
sidaa daraaddeed ayaa hoosta la mariyey oo sidii ummadaha shisheeye ayuu naguna hoos u dhigay luqadda carabigu ma aha luqada iska leeyihin waddamada carabeed ama dadka carabiga ku hadla laakiin waa luqadii qur'aanka waa luqadii nebi maxamed waa luqadii xadiidkiisa marka waxay ka turjumaysaa haddaad luqadan jeceshahay inaad jeceshay qur'aanka ila ilaahay baa ku hadlay subxaana wa tacaala inaad jeceshay nebigii calayhi salaatu wasalaam luqadan inagula hadlayay jacaylka ilaahay iyo rasuulka jacaylka kitaabka iyo sunnada buu ka turjumayaa luqada carabiga ku hadalkeeda arrintaana aqoon-yahankiina aad baan ugu baraarujinayaa luqadaasoo maanta ay gaaladu aada u sii riixayaan oo weerar badan iyadana ay ku hayaan waxyaabaha aqoon-yahanku doorku ummadda ku leeyahay waxa weeyaan muxaafadatu taqdiimi albadaa'il alislaami biqiyami alislaami wa tacaaliimi inaynu badaa'il islaamiya ku dadaalno hadda aqoon-yahanka tiin macnaha wax badan baa laynoo keenaa ama laynoo soo bandhigaa ama ina dhex maraya oo ummado shisheeye laga soo waariday ama dhaqamadooda ku salaysan waa inaynu islaamaynaa dhaqaalii baad islaamaynaysaa cilmiga caafimaadkaad islaaminaysaa wax walba badiil islaamiya waa loo helayaa wax walba sidii islaamku u dhigay ee uu ku saxnaa shaygani inaad tidhaahdo war adeer waxaan waa nidaamka noocaasa in loo isticmaalo waa ribo laakiin badiilka islaamiga ku hayaa ee saxdii waa kan waad qofkii ku qancin kartaa in waxyaabihii xaaraanta ahaa ama la cunayay ama la isku qurxinayay ama siyaabo kale loo isticmaalay aad wax islaamku ogol yahay aad ku soo bedeli karto oo fikradaha cusub bay ka mid tahay marka badaa'il islaamiya baa la yidhaahdaa shay kastoo xaaraana islaamku wuxuu hayaa wax lagu bedelo oo xalaala ayuu hayaa marka xalaasha ciddii dadka u soo bandhigi lahayd u macaanayn lahayd ila waxaynu nahay dad diintooda dhowranaya aakhiradooda dhowranaya alla ka cabsi labayna doorka ayaa qaadanaya doorka aqoon-yahankaa qaadanaya laakiin haddii la yidhaahdo wax walba sidaana caalam ku dhaqma iyo sidaanaa lagu arki jiray iyo sidaanaa la igu soo baray waxba maad soo kordhin arrintaasina aad bay muhiim u tahay oo ilaahay baa subxaana wa tacaala qur-aanka markii uu nabiga la hadlayay baa wuxuu leeyahy walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira mar kastoo ay kula yimaadaan tusaale ama waxay ku keenaan anna mid ka wanaagsan baa kuu keenayaa baa ilaahay marka xalkan islaamiga mar walba uu ka wanaagsan yahay waxyaabaha xaaraanta ah ee xun dhinacuu doonayaba ha ahaado qofka aqoon-yahanka ummadeennu ay u baahan tahay iyo doorka uu leeyahay waxa weeye waa doorkiisu wuxuu noqonayaa taxsiinu lumma min alghazwi alfikriy ummaddan islaamka ee aynu ka soo jeedno oo runtii dad diintooda jecela ku abtirsanaya ummadaha kale waxay leeyihin gaale iyagu aan wax gaalo waddankooda joogaa jirin meelaha shakhsiyaad baha laga sheegee duulimaad baa jira oo dadka muslimiinta had walba lagu hayaa duulimaad xagga maskaxda ah ama waxa loo yaqaano sariiqatu lcuquul caqligoo la xado caqligoo la xado dee cidda xadaysay kusoo duulaysa adigaa ummadda caqli u ahe waa inaad dhaabad uga dhigtaa oo farta ku fiiqi kartaa odhan kartaa waxaasi wakhtigaasuu soo bilaabmay ciddaasaa ka dambaysay sababtaasaa loo sameeyey ilbaxnimaha u malaynina wax badanoo dadka caqligooda iyo diintooda lagu duufsanayo ama daayarteenna lagu khalkhalinayo bay dadkeennu uba haystaan baynu ya wax ilbaxnimaaba loo haystaaba wiilashii iyo gabdhihii daayartiin waxaan ilbax yahay oo caalamka wixii cusub wixii caalamkaa jecel wixii cusub dabeetana waxaa cusub baa indhaha loo gelinaya markaa ka fikir laha wax walba baaritaanku sameyn raashinkaad eegaysaa waxaad eegaysaa alaabta la soo sameeyo waxaad eegaysaa calaamadaha la sameeyo iminka halkaasaan dhallinyaro aan maalmo dhaweyd la yar joogayba waxaan ku arkay waxay wada gashayin baraarug yaryaroo kuula ahoo calanka ku samaysayin markaa sii raacdo calaamada waxay u tahay qoomuluudka waa garatay soo maha khatar cadiim marka adduunyada qof lagu arka calaamada ah saasaa loo eegaa waa isagoo jeegaantii watoo kale baashii jeegaanta iyaga calaamada u ahay markaa qofku wuxuu odhanaya tolo maxay dadku kaa soo eegayaan kuushan yar baa lagu eegaya baraarugtan caag ah uu gashan yahay ila dad baa lagu yaqaanaaye macnaheedu waxa weye dadkaasaa ka mid ahay bay noqonaysa wax wal oo noocaasaba waa inuu qofku runtii dadka ku baraarugsiyo iyo fikirka qaldan ee caqiidada dhaawacaya haddii ay tahay kii la faafinaya ahaa diinta iyo dowladnimadoo la kala saaro
iyo haddii ay tahay fikirkii iminka soconaya dadkaba aada ugu batay ee ilxaadka ah